maalinta joojinta tubaakada adduunka waa hindise ay samaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaana la xusaa 31 May sanad kasta. qofka sigaarka caba waxa uga baxa $4,000 sanadkii. dadka isticmaala tubaakada waxay lacagtii loo isticmaali lahaa waxbarashada, cuntada iyo daryeelka caafimaadka ku qasban yihiin inay la aadaan kuna soo iibsadaan tubaakada. 5 xabo oo sigaar ah haddii la wada qaato oo qofku wada cabo waxaa ku jira nikotiin ku filan oo dili karta qof qaangaar ah. waa 5 xabo oo kaliya, bal ka waran dadka maalin kasta isticmaalaya 40 xabo iyo ka badan. qiyaastii dadka u dhintay sigaarka qarnigii 20aad waxaa lagu sheegaa 100 milyan oo qof, halka sanadkii ay hadda u dhintaan 8 milyan oo qof. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii Ciise Doctors ee caafimaad u iftiiminta Soomaalida oo idil. maanta waxaa miiska inoo saaran ciwaan aad iyo aad muhiim u ah. maalinta joojinta tubaakada adduunka 31 May ayaa la xusaa sanad walba. inta aan barnaamijkan u guda gelin, fadlan waxaan ka codsanayaa hadda nagu soo biirtay inaad page-ka noo follow garayso, sidoo kalena channel-ka aad noo subscribe garayso. haddii aad hore noola joogtana fadlan like-ta, commentiga iyo share-ka inagu saaciday, aad ayaadna u mahadsan tahay. sanad kasta hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay qabataa maalinta joojinta tubaakada adduunka ee 31 May. ujeedadoodu waa inay faafiyaan wacyiga ku saabsan khatarta isticmaalka tubaakada iyo sida aan uga dhigi karno adduunka mid sigaarka xor ka ah. qiyaastii 6 milyan oo qof ayaa u dhinta cudurrada la xiriira tubaakada sanad kasta. tiradaas ayaana la saadaaliyey inay kor u dhaafi doonto 8 milyan marka la gaaro 2030. laakiin tani macnaheedu maahan mid la hubo oo alle ayaa garanaya waxa dhici doona. ajendaha horumarka waara waxa uu higsanayaa in la dhimo dhimashada cudurrada aan la kala qaadin 3 meelood meel. cudurrada ku xiran tubaakada ayaana ku jira liiska cudurrada aan la kala qaadin. haddii la joojiyo isticmaalka tubaakada waxaa laga faa'iidi doono keliya ma ahan caafimaadkeena, sidoo kale waxaa siyaadi doona xajmiga dhaqaalaheena. qiyaastii celcelis ahaan qofka sigaarka caba waxa uga baxa $4,000 sanadkii. haddaba aynu u istaagno wacyigelinta maalintan si loo joojiyo isticmaalka tubaakada adduunka oo dhan, si loo helo mustaqbal ifaya oo qiiqiisunu yar yahay. markaan waxaan wax yar ka taataaban doonaa taariikhda maalinta joojinta tubaakada adduunka, fikirkan yaa keenay iyo xilligii la sameeyey. maalinta joojinta tubaakada adduunka waa hindise ay samaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaana la xusaa 31 May sanad kasta. ololahan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu faafiyo wacyiga ku saabsan khatarta tubaakada iyo saamaynta xun ee ay ku leedahay caafimaadkeena. waxaa kale oo ujeedadoodu tahay in la yareeyo cudurrada iyo dhimashada ay sababto cunista iyo cabista tubaakada. halkudhigii maalinta tubaakada adduunka ee sanadkii 2021 wuxuu ahaa ka go'aan qaado inaad joojiso. halkudhiga sanadkan waa ilaalinta deegaanka. dowladaha xubinta ka ah ururka caafimaadka adduunka waxay sameeyeen maalinta joojinta tubaakada adduunka 1987 si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka tubaakada adduunka, cudurrada iyo dhimashada uu sababay. ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in 8 milyan ay sanad walba u dhintaan tubaakada. tubaakada waa sababta ugu badan ee xanuunada neefmareenka ku dhaca, cudurrada sambabada xaniba ee joogtada ah, qaaxada iyo cudurrada kale. sanadkii 2008 WHO waxay mamnuucday nooc kasta oo xayeysiis ah ama dhiirigelinta tubaakada ah, maadaama uu yahay dalka ugu dadka badan adduunka. Shiinaha waa hogaamiyaha warshadaha sigaarka. in ka badan 30% wadarta guud ee sigaarka adduunka ayaa lagu soo saaray laguna cabay isla dalka Shiinaha 2014. qiyaastii dadka u dhintay sigaarka qarnigii 20aad waxaa lagu sheegaa 100 milyan oo qof, halka sanadkii ay hadda u dhintaan 8 milyan oo qof. 8 milyan ee qof ee u dhinta waxay ku jiraan 1.3 bilyan oo qof oo dunida joogta oo isticmaasha tubaakada noocyadeeda kala duwan. haddaba 8 milyan 7 milyan oo kamid ah waa dadka ayagu sida tooska u isticmaala tubaakada. 80% dadka isticmaala tubaakada dunida waxay ku nool yihiin wadamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah. dhimashada adduunka oo idil marka la qiyaaso 15% kamid ah waxaa loo aaneeyaa inuu sababo sigaarka. haddaba 5 xaqiiqo oo naxdin leh kuna saabsan sigaarka ayaan halkan kugula wadaagayaa. xaqiiqada koowaad waxay tahay tubaakada waxaa ka buuxa kiimiko. waxaa jira in ka badan 7,000 oo kiimiko ah oo la socda qiiqa tubaakada. xaqiiqada labaad waxay tahay kiimikooyinka qaarkood waxayba keeni karaan kansarka.
kiimikooyinka waxyeelada leh 69 ka mid ah ayaa la og yahay inay keenaan kansarka sidaasay tahay ay haddana dadku isticmaalayaan xaqiiqada kale ee naxdinta leh saddexaad waxay tahay sharciyada sigaarka ma ahan kuwo ku baahsan oo qof kasta uu yaqaano kaliya 20% dadka adduunka oo dhan ayaa lagu ilaaliyaa sharciyada sigaarka inta badan waa wadamada dakhligoodu sareeyo laakiin wadamada dakhligoodu hooseeyo ama horumarkoodu hooseeyo lama ilaaliyo oo goobaha dadweynaha ayaaba lagu isticmaalaa xaqiiqada afraad ee naxdinta leh waxay tahay jiilasha soo socda sidoo kale waa ay saameyn doontaa tirakoobyada ayaa saadaaliyay in 5.6 milyan oo caruur ah oo maanta ku nool Mareykanka ay u dhiman doonaan cudurrada la xiriira sigaarka haddaba qiyaas dunida oo kale oo dhan marka la isku daro meeqa caruur ah ayaa cudurrada sigaarka la xiriira u dhiman kara xaqiiqada shanaad ee naxdinta leh waxay tahay sigaarku macna ahaan wuu ku dili karaa 5 xabo oo sigaar ah haddii la wada qaato oo qofku wada cabo waxaa ku jira nikotiin ku filan oo dili karta qof qaangaar ah waa 5 xabo oo kaliya bal ka waran dadka maalin kasta isticmaalaya 40 xabo iyo ka badan haddaba maxay tahay muhiimadda ay leedahay xuska maalintan joojinta tubaakada adduunka laba qodob ayaa u muhiimsan maalintani waxay ina tusinaysaa sida warshadaha tubaakada ay uga qayb qaataan faqriga oo warshadaha soo saara alaabahani waxay ka qayb qaataan faqirtinimada ku dhawaad 80% dhimashada tubaakada ayaa ka dhacda wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe si kale hadii loo dhigo dadka ugu liita dhaqaal ahaan ayaa ah ku ugu xun ee uu saameeyo dadka isticmaala tubaakada waxay lacagtii loo isticmaali lahaa waxbarashada cuntada iyo daryeelka caafimaadka ku qasban yihiin inay la aadaan kuna soo iibsadaan tubaakada sababta labaad waxay tahay maalintani waxay nooga digaysaa halista sigaarku uu leeyahay gacanta labaad macnaha qofka ag jooga kan cabaya qiiqa gacanta labaad wuxuu sababaa in ka badan 600 oo kun oo dhimasho sanadkii nasiib daraduuse waxay tahay qiyaastii 28% dhibanayaashaasu waa caruur laakiin iyadoo loo tixgelinayo in ku dhawaad 50% caruurta ay ku neefsadaan hawo qiiq ah kaliya marka ay tagaan meelaha caamka ah ee dadweynaha waxay wadamada qaar ee dunidu ka mamnuuceen in magaalooyinka iyo gobolada dalkooda aan lagu cabi karin sigaarka meelaha dadweynaha isugu yimaadaan balse dalkeena Soomaaliya suuqyada maqaayadaha bi'allada iyo meelaha la isugu yimaado ayaaba ugu badan meelaha lagu cabo sigaarka